masjidka sigiska Islii Nairobi. Su'aasha koobaad haddii aan sheekh ku bilaabo waxay leedahay dembiyada ramadaanka la galo miyay ka dembi weyihiin dembiyada la gala bilaha kale? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaa ku sugan nusuusta zamanka iyo meeshu markastoy fadli badan tahay dembiga la galana waa ka weyn yahay dembiyada meel kale lagu galo ama xilli kale la galo. مثلا dembiga aad maka ku gasho oo baladul xaraam ah wuu ka weyn yahay dembiga aad meel kale ku gashay. xilliyada iyo azminada barakaysan ee khayraadka badan dembiga la galo waa ka weyn yahay xilliyada kale dembiyada la galo. sidaasi yani waxa weeye nusuus tilmaamaysaa jirta culimaduna sharax badan iyo faahfaahin badan bay ka bixiyeen, laakiin fil jumla duuduub ahaan sidaas weeye. xilliga khayrkiisu badan yahay dembiga la galana waa ka culus yahay, meesha khayrkeedu badan yahay dembiga lagu galana waa ka culus yahay meelaha kale. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aashaan maalin horaan sheekha weydiinay laakiin xagga farsamada awgeed waxaa la maqli waayey jawaabta sheekha, iyaday baan kusoo celinay. sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan wadanay markab xoolo noo saarnaayeen, xoolihii ayaa naga dhammaaday, waxaan is aragnay markab kale oo ay leeyihiin qolo aan muslim ahayn, waxayna nagu yidhaahdeen xoolaha dhintay ee idinka aad wadataan nooga badasha kalluunka aan wadanno, marka sidii baan yeelnay. shareecada maxay ka qabtaa? taa macnaheedu wax weeyaan baktigii aad wadateen ayaad kalluun ku gadateen. baktina lama intifaacsado, lama gato. nabigeennu sal alla alay wasalam waxyaalaha uu xaaraamiyey waxaa ka mida meytida lacagteeda, baktiga lacagtiisa nebigu waa xarimay sal alla alay wasalam sida xadiidka jaabir tilmaamayo. marka ama lacag kaa soo gashay ha noqoto ama shay kaloo xalaalood baktigii ku bedelatay ha noqotee, shaygaa aad ku bedelatay waa xaaraan. waxaa la samaynayaa waaye dadkii baktiga qaatay tage, dadkana malay bay soo qaateen kula soo wareegeen, malaygiisee la yeelayaa ama haddii la gaday lacagtiisee la yeelayaa. waxyaalaha noocaas oo kale ah waxaa lagu bixinayaa masaalixda caamka, danaha guud baa lagu bixinayaa, muslimiintu intifaacsanayaan, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, wadooyinka, meelahaasaa lagu bixinayaa. xoolaha noocaas oo kale ah ayagu inay intifaacsadaanna waa khalad, laanna yani qaab khaldan buu ku soo galay oo shareecada khilaafsan. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. gabar baa su-aashan soo qortay sheekh, waxay leedahay ninkayga ayaan isku dhacnay, kadib waxaan ku dhaartay inuu iga yahay aabbahay oo kale, haddana dib baan ka heshiinay, marka ma waxaan soomayaa 2 bilood oo isku xigta oo kafaaro gudkii ah? masaladaasi waxay u eg tahay masalada dihaarka. suuratu almujaadila ilaahay tabaaraka watacaala mujaadala kaga warramay oo ninku inuu xaaskiisa ku yidhaahdo hooyadayoo kale aad igala mid tahay ama hooyadai dhabarkeedoo kale aad iga tahay. asal ahaanna xukumkaas kafaara ka laasimta. hadduu intuu sidaas yidhaahdo ninku markaaba uu furi waayo, uma yacuuduuna limaa qaaluu, oo uu hadalkiisii ku noqdo, yani wixii uu lahaa uu ka noqdo oo furitaan raacin waayo wey macnaha, markaasi kafaara ku laasimaysa. qoor xoraynteed, 2 bilood soonkood, hadduu kari waayo 60 miskiin quudintood. xukumka dihaarka waa la yaqaanaa, laakiin xukumka dihaarka qur-aanku wuxuu sheegay ragga, jaahiliyadiina furitaan bay u yaqaaneen, islaamkuna xukum khaasuu siiyey oo dihaar baa laga dhigay kafaaro leh. xukumkaasi marka ma raggaa iska leh mise dumarku waa la wadaagaan? oo hadday haweenaydu ninkeedu ku tidhaahdo aabbahay oo kale aad iga tahay, ma dihaar baa mise ma aha? waa masle khilaafiya. fuqahadu qaar waxay leeyihin waa dihaar oo kale, iyadana kafaaradii baa ku waajibaysa. qaarna waxay leeyihin war ma ahee dihaar waxaa sameeyeen ciddii wax furi karta. qur-aankuna rag uun inay samayn karaan iyo ninku inuu samayn karuu sheega mooyaane dumar wax dihaaraya qur-aanku ma sheegin. sidaas daraaddeed dumarku wax ma dihaaraan. hadday tidhaahdo ninkeeda aabbahay oo kale aad iga tahay
waana sida xoogga badan waaye aabbahay oo kale adiga tahay hadday tidhaahdo yacni ma noqonayso kafaaradii dihaarka laguma yeelanayo laakiin mar kale waxaa laga doodayaa dhaar oo kale miyay tahay oo kafaaradii dhaarta miyaa ku waajibaysa mise waxba laguma lahaaba ixtiyaatan marka dadaal ahaan kafaaradii dhaarta maadaama taxriimku dhaarta uu yacni wax wey la macno noqdo inay kafaaradii dhaarta iska bixiso oo 10 miskiin ay quudiso haddayna haysaninna inay 3 beri soonto sidaasi oo dhaar ahaan marka laga soo qaado mooyaane dihaar ragga iskale cala saxiix wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waan ku salaamay salaan kadib waxaanan soomin sanado badan aniga oo caafimaad qaba haddana waxaa igu dhacay xanuunka dhiigkarka ah sinaba uma soomi karo mana soo qallayn karo ee maxaa igu waajibay haddaad soonka intaad kari kartay kas uga tagtay haddana xanuun kugu dhacay ilaahay u toobadkeen haddaad soomi kartana soo qallee baa lagu dhihi lahaa haddii aadan qallay karayninna ilaahay u toobadkeen dambi dhaaf weydiiso oo cibaadaadka kaleed kari karta badso culimmada qaar dhahayana waa jiraan fidyo iyo raashiin ha la bixiyo oo soomankii uu ka tegey ha ka bixiyo laakiin soon kas looga tegey fidyo shareecadu uguma sheegin yacni wax weeye soonka fidyada laga bixiyo waa soon cudurdaar looga tegey sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa cibaadaadka kale badso inta uun aada nooshahay ilaahayna toobad dhaba ulimo toobadkeen wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaa ii dhow masjid dhanka dambe kaga yaala qabuuro ma bannaantahay inaan ku tukado masjidkaas masi jirtaa masaafo lagu qiyaasan karo masjidka iyo qubuuraha oo haddii intaa u jiraan aanan lagu tukan karin haddii inta aysan u jirsanin macnaha aan lagu tukan karo masaafo sida axaadiista nebiga ku sugan sal alla alay wasalam ee bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ku sugan qubuuraha meel lagu tukado lagama dhigi karo qubuuraha iyo masaajidana laysuma geyn karo arrintaa nebigu waa diiday sal alla alay wasalam alimaam axmed iyo aimo badanna waxay leeyihiin haddii masjid iyo qubuur laysu geeyo hadduu masjidku horreeyeyna masjidkaa xaq leh qabrigan dambe ee dib laga geliyo waa la saari qubuurta muslimiinta lagu darayaa hadduu qabrigu horreeyo masjidka dib laga dhisayna masjidkaa la duminayaa laakiin masjid iyo qabri isku dhex jira ama isku dhex yaalla way khilaafsan tahay hadyigii iyo diintii nebi maxamed laga soo gaadhay sal alla alay wasalam aad bay u khilaafsan tahay saxna ma aha hadday dhacday inay qubuurtu gadaal ka jiraan waa in derbi loo dhexaysiiyo waa in la kala jaro qubuurta iyo masaajidka hadday qubuurta masaajidka ka horeysana waa in la kala jaro oo derbi loo dhexaysiiyo ama wadiya meel la maro loo dhexaysiiyo laakiin masjid iyo qubuur isku dhex taalla nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh in lagu tukadana ma aha haddii laga maarmi waayo masaajidkana qubuurtu hadday dambaysay qubuurta ha la saaro wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa maraykanka waxaan ku weydiinayaa sheekhow marka aad rabto inaad bangi aad furato akownkiisa waxay shardi kaaga dhigayaan inaad dhigato $25 bil kastana wuxuu kaa qaadanayaa $10 ee lacagta xukunkeedu muxuu noqonayaa masaladaasi waa mucaamalo meel aanan joogin ka dhacaysa macluumaad siyaadayna u baahan tahay maraykanka aad joogto culimada joogta weydii iyagaasa garan karaya mucaamaladan aad ka hadlayso fahmi kara kadibna wixii shareecada waafaqsan kaa dhihi kara insha allahu tacala wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan sheekha weydiinayaa waxaan ku jiray hagbad ama ayuuto taas oo socotay 18 bilood marka 18 bilood kadib ayaan qaatay ayada oo sako goys ah marka lacagtaas sako miyaa lagu leeyahay intaa socotay 18 bilood kadib haddaad qaadatay طبعا 18 bilood ee hagbadda la bixinayay dadka kaa horeeyay oo dhan lacag baa kaala jirtay adaa wax bixinayay waqtigaagii baa soo gaadhay waxa kuu soo noqday inta badan waa
lacagihii aad bixisay haddaad ruuxii ugu dambeeyey tahayna kulli lacagta kuu soo noqotay waa uun lacagtaadii oo dadkan kuugu ururtay ood ku lahayd unbaa kuu soo noqotay ruuxa koobaad iyo ka labaad iyo ka dhexdaabaa deymo qaata deyn bay ku noqotaa laakiin ruuxa ugu dambeeya lacagihii ka baxay muddadaas oo ururay unbaa usoo noqonaya lacagahaasi kaa maqnaa hadday saka gaadheen sanadna u soo wareegay qaar ka mid oo kaa maqnaa deyn kaa maqan bay ahayd deynta kaa maqan hadday saka gaadhay sanadna u soo wareegay saka waa lagu leeyahy lacagtaa kaa maqnaydee dadka aad siisiinaysay haddayna sanad ka soo wareegin ama ayna sakadii nisaabkeedii qadarkeedii gaadhinna saka laguma lahaa waxaa dhici karta qaar ka mid ah in saka lagu yeesho qaar ka midana aan lagu yeelin waxay ku xidhan tahay muddadii in la fiiriyo lacagtu sakadii ma gaadhayna la fiiriyo halkaasaa waxaa ka soo baxaysa saka ma lagu yeelanayo mise lagu yeelan maayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ugu dambaysa barnaamijkeenan maanta waxay leedahay sheekh markaan timir ku afuray kadib ayaan sigaar ka daba cabay marka ajirkii soonka wax maiga dhimaya soonkii waad afurtay mar haddaad afurtayna soonkaagii waa dhammaaday sigaarkan iyo waxaan dambeed ku cunaysana waa uun xaaraan aad muxuu ahaaye aada quudanaysa weye inaad iska daysana kuu fiican laakiin soonku wuu xidhmay oo wuxuu ku xidhmay maalintii qoraxdii baa dhacday khalaas waad afurtay soonkaagii halkaasuu ku xidhaya maalintaa waa dhammaatay laakiin mid baa meesha ku jirta midda meesha ku jirta waxay tahay cibaadaadka addoommadu ay samaynayaan waa inay ruuxa saamayso weye waa inay xumaanta ka celiso sida ilaahay soonka laftiisa markuu ka hadlayey yani waxa weye kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun soonku waa inuu alla ka cabsi ku geliyo waa in balwadaadii xumaantii waxaad lahaan jirtay uu kaa jaro hadduu kaa jari waayo soonkaaga waxbaa si ka ah salaaddii oo kale ilaah waa ka sheegay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadu dadka xumaanta iyo dembiyada foosha xun bay ka celisaa hadday salaadaadu kaa celin weydo salaadaada waxbaa si ka ah dhanka markaan ka fiirino xajkaoo kale markuu ilahay ka hadlay sidoo kale inuu dadka taqwo iyo alla ka cabsi geliyo cibaadaadku marka sidaas waaye haddii aad cibaadaysanayso dhanka kalena xumaantii aad qasanayso sigaar cabayso qaad cunayso xaaraantii waxba ayna muxuu aad wixii iska qasanayso meeshaa waxaa ka soo baxaya cibaadadaadii way ku xakamayn lahayd haddii aad u samayn lahayd sidii la rabay laakiin waxba cibaadadaada ka khaldan saas daraaddeed bay wax kaaga qaban laadahay oo ay kuu xakamayn laadahay dhankaa marka laga fiiriyo waxaad u baahan tahay inaad dib ugu noqoto cibaadadaada ama soon ama salaad ama soonkii maalinka aad soontay asagu sidiisu u dhammaaday xaaraanta aad habeenkii gelayso soonkii maalintii dhammaaday xagga asixidiisa waxa ma yeelay soonku uu asaxay waa xidhmay waa cibaado xidhantay dunuubtan aad gelaysana way ka madax bannaan tahay wallahu aclam وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم